maad fahansan tahay mase la socotaa faa'iidooyinka ay leedahay habeenkii haddaad seexatid adigoo qaawan yacni loo jeedo dharkii shaqada ama dharkii magaalada aad ku socotay inaad iska bixisid oo dhar loogu talagalay oo fudud hurdada aad xiratid faa'iidooyinkay leedahay weli maad qiyaastay mase ku fakartay dadka intooda badan walaalayaal way garanayaan ahamiyadda iyo faa'iidada ay leedahay hurdadu caafimaadka guud ahaan ay u leedahay laakiin waxaa jirta arrin kale oo faa'iidooyinkaas kuu xoojinaya oo kuu xaqiijinaya waxaa weeye inaad seexatid adoo qaawan nooca inaad samaysid waxay kuu horkacaysaa inaad heshid faa'iidooyin tiro badan oo caafimaadkaada xiriirla leh faa'iidooyinkaasaan dhowr qodob ka sheegaynaa insha allahu tacaala sida ay noo faa'iideynayaan khubarada arrintaasi ku takhasustay faa'iidooyinka laga helaya waxaa weeye arrintaas waxaad helaysaa miisaan dheelitiran oo caafimaadkaada khuseeya dhinaca lafahaada hadday noqoto dhinaca jirkaada hadday noqoto ama dufanka kugu jira haddayba noqotaba walidaalika waxaa la yidhaahdaa hormoonaadkaada waxay gubayaan oo baabi'inayaan wax kasta oo zaa'id kugu ah oo miisaankaada caafimaadkiisa wax u geysan kara sida dufanka badan waxaa kaloo kuu hagaagaya nidaamka heerkulka jirkaada ayaa si dabiiciya sida loogu talagalay kusoo laabanaya maadaama maanta oo dhan aad shaqaynaysay laga yaaba inaad wareegaysay laga yaaba inaad sheekaynaysay laga yaaba meelaha inaad marmaraysay habeenkii qaabka noocaas haddaad u seexatid xaaladda noocaasaad ku dul seexatid jirkaada kulaylkii iyo dugaalkii loogu talagalay ee abuurista ilaahay ahayd ayuu ku soo noqonayaa waxaa kaloo faa'iido uu yahay adoo qaawan inaad seexatid oo dhar fudud ku seexatid oo furan waxaa faa'iidooyinkiisa ka mid ah xoogaa culayska aad dareemaysid iyo walwalka aad dareemaysid ayaa arrintaani kaa saacidaysaa inay meesha ka baxdo waxayna xoojinaysaa hurdadaadu inay ku imaato si wanaagsan walidaalika baaritaan badan oo casrigan la sameeyey uu sidaa tilmaamay dadka sida aan ku seexanna waxaa la ogaaday in hurdadoodu ay tahay mid isbaraanbaraysa oo aan si wanaagsan ku socon raaxa dareemi mayo hurdadiisa dhexdeeda mar waa soo boodaya maantao dhanna waa isgedgedinayaa qofka aan sidaa ku seexan laakiin si fiican buu u dhacayaa qofkii ku seexda dharka jiifka ee runta ah ama qaawanaansho oo kale inaad iska bixisid dharkii hoose kuwii kore ee mara yar iyo wax la midka aad xiratid dad wax laga yaaba dharkay maanta magaalada ku joogaan ama suuqa ku joogeen ama shaqada ku aadeen ama ay ku labisanayeen inay iskaga seexdaan ama qayb ka mida dharkaas inay ku seexdaan oo is isbeddel lahayn ma doonaysaa hurdadaadu inay ku imaato si wanaagsan oo hurdo wanaagsan oo kugu filan aad heshid sidaas samee waa sida ay khubaradu tilmaamayaan arrintan ku takhasusay hurdo aad u wanaagsan oo heer sare ah ayaad helaysaa jirkaaduna dheelitirnaan wanaagsan ayuu helayaa xilliga aad hurdid sidiisii dabiiciga ahaydna wuu ku soo noqonayaa waxaa kaloo arrintaa ay ka qayb qaadanaysaa inuu wanaagsanaado meelaha dhiiggaadu u maro maantao dhan dharkaad dhexda ka xirnayd hadduu surweel noqdo hadduu wax kale noqdo ama suun aad ka xirnayd dhibaato badan ayaa laga yaabaa in ay dhiigmareennadaada ay ku keenaan ama dharkii aad xirnayd haweenay haddaad tahay ee hoosaad ka xirnayd markaad iska bixisid si u eg qaawanaashan aad ku seexatid naftaadu waxay dareemaysaa raaxo wabitaali waxaa dhaqdhaqaaqaya meel kasta oo dharkaada markaad xirnayd uu xiray ayaa dhaqdhaqaaqaysa oo jirkii ayaa isku furmaya xididada dhiiggaadu ay maraanna si wanaagsan ayay u qaadanayaan dhiigga taasna waa arrin anfacaysa caafimaadkaada oo wanaagsan waa faa'iidooyinka markaad seexatid adoo u eg sidii qof qaawan gurigaada jiifka aad iska seexatid mara yar sidaa iskugu laalaabtid dharkii kalena iska dhigtid ee maantao dhan qabtay jirkaada markaad huridid raaxa ayuu dareemayaa wabitaali socodkiisii dabiicigahaa xididadiisa kala duwan ayaa u soo noqonaya waana arrin caafimaad ah waa mahadsantihiin jasaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu